wasalaam wuxuu arkay nin masaajidka dhexdiisa baylah ka luntay ka raadinaya markaa buu nabigu yiri ilaahay kuma soo celiyo buu ku yiri haddaad aragtaan ood aragtaan nin masaajidka dhexdiisa wax ku iibsanaya ama wax ku iibinaya waxaad ku tiraadaan ilaahay kuma barakeeyo dhahada haddaad aragtaan masjidka dhexdeeda qof baylaha duuya ka yoohinayana isagana waxaad ku tiraadaan buu nabigu ilaahay kuma soo celiyo dhahada inama buniyat almasajidu lima buniyat laha masajida waxa loo dhisay cibaadada Allah baa loo dhisay masajida in ilaahay lagu weyneeyo oo ilaahay lagu baryo oo ilaahay lagu caabudo oo ilaahay loogu dhawaado masaajidka loo dhisay meesha dadka muslimiintu rabbigooga ay kaga xidhmaan waa masaajidka qofka masjidka cilaaqa aan la lahayn waa daliil waxay daliil u tahay qofkaas ilaahay cilaaqa lama leh muslimku halku ilaahaysa kaga xidhmo waa masaajidka todobada ilaahay jalla wa ala maalinka qiyaamaha uu hadhayn doono maalinta harka alla mooyaan har kale uusan jirinna waxaa kamid ah buu nabigu alayhi salaatu wasalaam warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi nin qalbigiisu mar walba masaajidka ku xidhan yahay masjidka cilaaqa la leh ayaa kamid ah buu nabigu sallallahu alayhi wasallam